Shirkadda Nissan ayaa khasaartay 687 milyan oo lacagta doolarka Mareykanka ah, waxaana faraceeda dalka Ruushka ay ku iibiyeen lacag gaaraysa €1 oo kaliya. Shirkadda Nissan Motor Company ayaa waxa ay ku wareejin doontaa ganacsigeeda dalka Ruushka shirkad ay dowladda dalkaasi leedahay, iyada oo ku iibinaysa €1 oo dollar ahaan xilligan u dhiganta 97 senti oo ah wax ka yar $1, sida lagu sheegay bayaan shirkadda ka soo baxay Talaadadii shalay ahayd. Shirkadda ayaa waxay dusha saaranaysaa khasaare qiimo ahaan gaaraya 687 milyan oo lacagta doolarka Mareykanka ah, kaasi oo ah qarashkii ugu dambeeyay oo ay waddan kaga baxdo shirkad heer caalami ah. Shirkadda gawaarida samaysa ee fadhigeeda ugu weyn uu yahay dalka Japan ayaa waxa ay ku wareejisay saamiyadeeda Nissan Manufacturing shirkadda Ruushka laga leeyahay ee Russia LLC Nami oo ay dowladda Ruushka leedahay. Heshiiskan ayaa waxa uu ogolaan doonaa shirkadda Nissan xaqa ay dib ugu iibsan karaan ganacsigooda muddo 6 sano gudahood ah. Wasaaradda Warshadaha iyo Ganacsiga ee dowladda Ruushka ayaa qoraal ay soo saartay sidaas ku sheegtay. Heshiiskan ayaa waxa uu ka dhigayaa Nissan shirkaddii ugu weyneyd ee ka baxda Ruushka tan iyo markii xukuumadda Moscow ee 10,000 oo askarteeda ka mid ah ay u dirtay Ukraine bishii Febraayo ee sanadkan. Shirkadda Nissan waxa ay sheegtay in ay filaysay khasaare aan caadi ahayn oo ku dhow 100 bilyan oo lacagta yen ah, kaasi oo u dhigma 687 milyan oo lacagta doolarka Mareykanka ah, balse waxa ay sii waday saadaasha maaliyadeed ee dakhligeeda sanadka oo dhammaanaya bisha Maarso ee horaanta sanadka 2023. Heshiiskan ayaa waxaa sidoo kale qayb ka ah shirkadda Faransa ee Renault, kuwaasi oo saami gaaraya 43% ku lahaa wax soo saarka shirkadda Jabaneeska ah fadhigooda dalka Ruushka. Renault ayaa waxa ay ku xisaabtamayeen faa'iido barax tiran oo qiimo ahaan gaaraysa 331 milyan oo euro qaybta dambe ee sanadkan sii dhammaanaya 2022. Nissan ayaa waxa ay hakisay wax soo saarkii warshadaheeda magaalada St. Petersburg ee dalka Ruushka bishii Maarso sababtoo ah khalkhal ku yimid silsiladda zaadka ee afka Ingiriiska lagu yiraahdo supply chain. Tan iyo xilligaas wixii ka dambeeyay, shirkadda iyo qaybteeda maxalliga ah waxa ay la socdeen xaaladaha ayaa la yiri, balse ma jirin isbeddel muuqda oo ku yimid deegaanka dibadda ah oo ay shirkadda Nissan ula jeeday faragelinta Ruushka uu ku sameeyay dalka Ukraine iyadoo dagaaladu ay sii socdaan, taasi oo ku kaliftay inay go'aansato inay gebi ahaanba isaga baxdo dalkaasi. Ka bixitaankooda Ruushka ayaa yimid iyada oo Nissan uu bilowday isbeddel weyn oo ku saabsan xiriirka ay la leedahay shirkadda reer Faransa ee Renault. Labada shirkadood waa Nissan iyo Renault waxa ay sheegeen Isniintii toddobaadkan inay u socdaan wadahadallo ku saabsan mustaqbalka isbahaysigooda, kaasi oo uu ku jiro in Nissan ay ka fikirayso inay maalgashato ganacsi cusub oo baabuurta korontada ku shaqeeya ah, kuwaasi oo ay samaysay shirkadda reer Faransa ee Renault.